sanadkii 2020 caalamka oo dhan wuxuu u ahay sanad ay jiraan cudurro halis ah oo aanfeeyey dunida. annaguna waxaan la qabnay, ilaah baa noo yasiray, laakiin waxaan la qabnay caalamka. soo marka sanadkaas waa sanad horta howlihii dowladda guud ahaan la waday sanad ay xoogaa gaabku ku yimid ayaa horta la dhihi karaa, lagu fasiri karaa. wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada sanadkii 2020 qorshooyinka ay ku tala gashay waxna waa u fuleen, waxna waa u fuli waayeen sida hay-adaha kaleba aan la qabno. waxyaabaha horta annaga noo fulay waxaa ka mid ah, annaga sida aad ogtiin wasaaraddu waa laba qaybood. labadaa qaybood howsheeda waa la isku waday oo marna dee qayb laga gaabiyo ma jirto, laakiin prioritieskeyna wuxuu ahay qaybta civil aviation oo sida aad ogtihiin civil aviationku waxau ka mid yahay hay-adaha lagu ilaaliyo xornimada dalka, jiritaanka xuduudeed ee qarannimo. hay-adaha lagu ilaaliyo ayay ka mid tahay hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed. marka wasaaraddeena awoodda ugu badan ee aan maaragtay aan samayn karnay, ilaahayna uu noo suuro geliyey, waxay ahaaday inaan dib u dhis iyo dib u howlgelin ku sameyno hay-adda duulista rayidka. qaybta labaadna waxay ahayd qaybtan gaadiidka dhulka. marka qaybtii hay-adda duulista sida aad ogtihiin waxaa la ansixiyey sharcigii hay-adda duulista rayidka, waxaa dib loo howlgeliyey hay-addii duulista rayidka, waxaa la soo wareejiyey maamulkii hawada Soomaaliya oo dhowr iyo 20 sano lagu maamulayo dibadda. waxaa mataqaanaa lasoo raray shaqaalihii. waxaa maanta sanadka 2020 ee dhammaaday, dhammaan wuxuu noogu dhammaaday iyadoo ay dhammaystiran tahay howlgalkii iyo shuruucdii hay-adda duulista rayidka. qaybtaas markaan ka soo gudbo, qaybta kale waxay ahaaday garoomada oo ayaguna hoostaga hay-adda duulista hadda la hoosgeeyey, laakiin markii hore wasaaraddu ay gacanta ku haysay. ayagana garoomo badan ayaa maamulkooda tababaro iyo ballaarin iyo lagu sameeyey oo dalka ah, oo uu ka mid yahay garoonka caasimadda ee Muqdisho. wasaaraddu waxay kaloo sanadkii 2020 ay gacanta ku haysay sameynaysay sahminta garoon cusub oo ay yeelato caasimadda Soomaaliya oo hadda gacanta lagu haayo, meel fiicanna maraayo. marka qaybtaas waa qaybta kale. qaybtan gaadiidka annaga waxyaabaha noo qorshaysnay waxaa ka mid ah inaan sameyno baabuurta aadka u jajaban, la dhihi karo waa scrap, inaan ku sameyno tijaabo MOT aan sameyno, taasoo aan la sameyn muddadii dalku uu burburka ka soo noqday ilaa iyo hadda. marka sanadkii 2020 waxaan bilownay oon suuro gelinay mashruuca tijaabada bidqabka nabadgelyada gaadiidka oo loo yaqaano Cloud ama MOT. mashruucaas oo aan bilownay muddo markaan wadnana xoogaa yar hakad naga galay, haddana aan sanadka 2021 noo qorshaysan inaan dib u bilowno. waxyaabaha kale aan xusi karo waxaa ka mid ah, wasaaraddu waxay ku guuleysay inay diyaariso sharcigii wada marista traffic act oo sharciga nabadgelyada wadooyinka la yiraahdo, oo aan u gudbinay golaha wasiirada la marsiiyey baarlamaankana yaalo. sharcigaas oo muhiim u ah marka laga hadlayo gaadiidka dhulka. wasaaraddu waxay kaloo gacanta ku haysaa siyaasadda transportationka, transport policy oo hadda yani gacanta lagu hayo. sida ogtihiin siyaasad marka la sameynayo wuxuu u baahan yahay in wax badan laga fikiro, istaadi badan la sameeyo, wixii dalkan siyaasad ahaan mustaqbalka lagu hormari lahay in laga fikiro waxay u baahan tahay waqti. hase yeeshee sanadkii 2020 waxyaabaha aan bilownay meel fiicanna noo hadda noo jooga ayay ka mid tahay. waxaa kaloo ka mid ah
mashruuca dib u casriyeynta taarigooyinka iyo leysimada oo aa og tihiin markhaati ka tihiin muddo badan maadaama hadda aada naga warhaysaan heerarka uu soo mariyey oo aan ku bilownay inaan marka hore horta dadka aan barno in taarigo iyo leysan la qaato kadibna aan buug oo manual ah aan dadka inay leysan ahaan loo siiyo haddana jooga ID iyo soft database iyo digital qalab ah inaan ku shaqeeyo marka iyadana mashruucaasna wuxuu ka mid ahay waxyaabaha aan gacanta ku haynay welina aan soo gabagaboobay waxaan oo hadda u gudbaya sanadka 2021 waxyaabo badan waxaa ka mid ah diiwaangelinta gaadiidka dowladda oo aa og tihiin gaadiid badanaa dalkaan yimiday oo dowladdu leedahay oo dee intii nidaamka la dhisayay oo bilowga ahay yani si controlan gaadiidku dalka uma imaanayn hay-adaha iyo cid kasta ciday wax ka keeni kartay ka keenaysay marka dalka maadaama uu soo geliyey oo la isticmaalayo waajibaadkeenana ay ka mid tahay inaan hantida dowladda aan diiwaan gelino waxaan ku guulaysanay inaan diiwaan gelino gaadiid badan oo dowladdu leedahay oo hadda ay isticmaalaan hay-adaha dowladda oo aan rikoorkiisa aan hayno runtii waxaan soo saarnay sanadkii 2020 xeerka ku dhaqanka shuruucda gaadiidka dhulka oo ah heer wasiir lagu soo saaray oo lagu qeexayo dalkaynu shuruuc lahay laakiin dadka inay shuruucda ku dhaqmaan lagu soo rogay kaasoo asagana hadda mataqaanaa dhaqan galay oo ilaa iyo hadda aan ku shaqeeyo marka waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha la qabtay hadda aan xusuusto inaan shaqaalaha tababaro iyo tayeyn aan ku sameynay oo shaqaaluhu maanta ay yihiin shaqaale hawsha ay gacanta ku hayaan ka bixi kara marka wax badan oo aanan qaban oo noo qorshaysnayna way jiraan taasoo aan la qabno duruufta waddanka maanta uu ku jiro sida aa og tahay budgetkeenna waa wax kooban dowladda maanta waxay ku dadaashay xukuumaddan hadda 2017 madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu madaxweynaha ka yahay waxaa lagu dadaalay in hortaba lagu guuraysto xuquuqda naflaha bini aadamka oo ah tan koobaad oo ah in shaqaalaha rayidka ee dowladda la siiyo mushaaraadkii in ciidamada la siiyo taasoo dee culayska aan dowlad ahaan wajahayno marka la barbar dhigo arrin aada u adkeed ah taasoo lagu guulaystay marka maadaama marka dakhli uruurintayna ay yar tahay sida aa og tahay dowladdu maanta waxay dakhli ka heshaa magaalada caasimadda ee muqdisho kaliya marka laga reebo waxyaalaha oo mucaawanooyinka ama kaalmooyinka marka laga reebo dowladdu dakhliga waxay ka heshaa gobolka banaadir kumana filmo dakhliga gobolka banaadir in lagu hormariyo dhammaan hay-adaha dowladda marka annagoo duruuftaas aan arkayno ay sabab u tahay ayaa waxyaabo badan oo mashaariica ama horumarin ah ama shuruuc ah ama siyaasado ah yacni oo noo qorshaysnay ayay dib nooga dhaceen sababtuna waa iyadoon la helin budgetkii aan ku talagalnay sida aa og tahay cidna hadda maanta ku dhaliili mayno sababtoo ah waxaan ognahay duruufta dalku ka jiro laakiin wasaaraddan oo shaqaynaysa oo budgetkii loo qoondeeyey loogu talagalay howl socodsiinta aan nus aan helin waa fahmi kartaa waxa ay qaban karto marka yacni waxyaabahaasa ayagana sabab ahaan aad dib u dhigay